haddii aad arday tahay weligaa ma isweydiisay maxaa kugu qasbaya inaad bangi doorato adigoo isticmaali kara bangiyo kale? Maanta waxaan rabnaa inaan su-aashaasi uga jawaabno si cilmiyeysan iyadoo sharaxi doono daraasad caalami ah. Bangiyadu maanta waxay ku tartamaan ardayda sababtoo ah ardaydu waa macaamiisha mustaqbalka. Taas ayaa ka dhigaysa in ardaydu maanta ay kala doortaan bangiyada ay qaadanayaan. Su-aashaas ayaan waxaan rabnaa inaan uga jawaabno si cilmiyeysan. Cilmi baaristani waxaa qoray Xuseen iyo asxaabtiisa, waxaana laga qoray waddanka Bangladesh iyadoo daraasadda lagu sameynayo arday dhowr ah oo kala dhigto jaamacadaha kala duwan ee waddankaas. Su-aasha cilmi baarista waxay ahayd sidee 7 Pieces ama marketing mixes saameyn ugu yeeshaan doorashada ardayga inuu bangi isticmaalo. Daraasadda waxaa la weydiiyey su'aalaha in ku dhow 250 arday oo kala dhigta 15 jaamacadood oo ku yaala Bangladesh. Dhammaan ardaydaasi waxay ka sinnaayeen ugu yaraan in ardaygu uu haysto hal bangi account. Su'aalaha la weydiinayana waxay ahaayeen structured questions ugu diyaariyey commissioner. Toddobada piece ee la weydiiyey ardayda waxay ahaayeen product, price, place, promotion, people, iyo process, physical evidence. Sidee saameyn ugu yeeshaan ardayga inuu qaato serviceka bangi? Cilmi baaristu waxay muujisay 4 ka mid ah 7 mixed marketing ee cilmi baarista lagu sameynayo inay ardayda ku doortaan marka ay rabaan inay bangi ka qaataan service. 4ta cilmi baarista soo saarta ayaa waxay tahay people, taasoo ah dadka ka shaqeeya bangiga inay saameyn ku leeyihiin in ardaygu uu doorto inuu bangiga adeeg ka isticmaalo. 2 waa process, habka dijitaalka ah iyo fududeynta adeeg bixinta ee bangiga ayaa saameyn ku yeelata inuu ardayga service ka qaato bangiga. 3 waxaa galay qiimaha ardaydu waxay aad u xiiseeyaan productiska lagu sameeyo pricing ama qiimaha kala duwan ee quseeya ardayda. Ugu dambeys, isla productiga laftirkiisa wuxuu saameyn ku yeelanayaa ardayga inuu isticmaalo bangiga. Cilmi baaristu waxay caddaysay 3da soo hartay ee ah placeka, promotionka iyo physical evidence-ga in ay saameyn xooggan ay ku lahayn go'aan qaadashada ardayga in uu bangiga ka qaato adeeg. Tani waxay inoo sheegaysaa in ardayda iyo dhalinyarada aysan ku dhicin kaliya xayeysiin ee saameyn ay ku leedahay dadka u adeegaya productiga la siinayo, qiimaha la saaraya iyo processka adeegga lagu helayo. Haddii aad tahay bangi, ma ahan inaad xayeysiin badan aad ku bixiso marka aad rabto inaad ardayda promotion u sameyso, balse waa inaad ku bixisaa waqti badan helidda adeegyadaada, processka iyo dadka u shaqayn doona ardayda. Markii la joogo doorashada bangigaaga ha ku salaynin magac iyo xayeysiin ee waxaa ku salaysaa processka iyo productigaaga siduu u fudud yahay. Guud ahaan, cilmi baaristu waxay caddaysay adeegga inuu aad ugu muhiimsan yahay xayeysiinta. Haddii aad tahay arday, bangi ama qof caadi ah, waxay kula tahay noogu reeb commentiga